kula wacan wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay oo mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyay khilaafka cirka isku sii shareeray waa Soomaaliya iyo Ethiopia dowladaha Masar, Eritrea, Djibouti oo si weyn ula saftay dowladda Soomaaliya sheegayna inay qaadi doonaan tallaabo culus oo jawaab lagaga bixinayo weerarkii lagu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale dagaal aad u culus ayaa ka soconaya dalka Ethiopia iyadoo ciidamada Tigraygu ay gudaha u galeen gudaha gobolka Axmaarada. TPLF ayaa sheegtay inay diyaar garowga ugu ballaadhnaa gaadhay ciidamada Axmaaradana ay kula dagaalami doonaan gobolka Raaya ee xogaga Axmaarada ay gacanta ku hayaan. Faara ayaa sheegtay inay u jahaysanayso dhanka Addis Ababa meesha ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu ciidamadii ugu badnaa u soo daabulaya dhanka koonfurta Soomaaliya. qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda Soomaaliya ama dalka Soomaaliya ayaa hanjabaad culus u diray dowladda Ethiopia iyagoo sheegay Soomaalidu inay u diyaarsan tahay inay si weyn iskaga difaacdo Ethiopia. Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa fooda isdari doona maalmaha soo socda. Addis Ababa ayaa diyaar garowgii ugu ballaadhnaa ciidan diyaarinaysa. sidoo kale maamulka Somaliland ayaa dowladda Ethiopia ku soo dadajinaya inay dagaalka bilowdo ama duulaanka ciidankoodu ay ballaadhiyaan Seylac iyo lagu hayana ay gaadhaan si Muuse Biixi Cabdi xukunkiisa ugu sii dheeraysto dagaalo culusna ay dib uga qarxan waqooyiga Soomaaliya. saraakiil sare oo ka tirsan liyu booliska ayaa xabsiyada laga sii daayay oo waayadii ugu dambeysay xabsiyada liinta ku cabaya iyadoo saraakiil sarsare oo Korneyla Mustafa Cagdar hal sano ku dhow xabsi ugu jiray uu caafisu fidiyay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa. barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay gooni oo soo dhawow. xaaladda cirka ayaa isku sii shareertay waa Soomaaliya iyo Ethiopia ballan waxay ku qaaday in ay Seylac iyo lagu hayo tagays dagaal ay isu diyaarisay meesha Soomaalidu qudhigoodu abaabul yar aynan wadin. waxaa jira dalal badan oo la saftay Soomaaliya oo ayaguna diyaar garow ku jira dagaalkana qayb wax la ka qaadan doono. horta xaaladdu xagee maraysaa Soomaaliya iyo Ethiopia soo dhawgano shida waa maasan tahay Soomaaliya horta diyaar garow aad u weyn ugu jirtaa inay iska celiso Ethiopia maadaama gardarro ay wado isla markaana ay doonayso in dhulka Soomaaliyeed xoog ugu qabsato dagaal. arrinta marka waxaa ka socdo diyaar garow aad u weyn. waxaa haddana sii kordhiyay xiisada kadib markii madaxweynaha Soomaaliya ay ku xadgudbeen dowladda Ethiopia oo dhowr mar isku dayeen inay markaas handidaad u sameeyaan ama ay ka baajiyaan shirka golaha midowga Afrika ee ka dhacay magaalada Addis Ababa. arrintan waxay sii xoojisay kala fogaanshaha Ethiopia iyo Soomaaliya mudooyinka la soo dhaafay waxaa la sheegay inay ciidamo aad u fara badan oo dadka shacabka isqoray ah in lagu tababarayay duleedka magaalada Muqdisho iyo xeryaha ay markaasi ku leeyihiin nimankan Turkiga. magaalada Muqdisho ayaa loo tababar weyn ka socday ilaa 70,000 dad ku dhow ayaa isqoray oo sheegay in Ethiopia la dagaalami doonaan. dad waaweyn oo odayaal ku jiro dhalinyaro ku jirto dad waxa ku jiro yar haween ku jiro dhammaantood tababar ayaa u socday. marka waxaad dareemi kartaa Soomaalidu inay ku tala gashay ilaa 200-300 kun oo ciidan ah inay intee diyaarsato ee la dagaalanta Ethiopia. qorshahaas noo socda Eritrea ciidamo ayaduna tababaraysa oo si qarsoodi looga qaado Muqdisho tababarkooduna waxa ka socda magaalada Asmara duleedkeeda iyo dhanka xeebta. marka waxaad dareemi kartaa in dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedu dadaal weyn ugu jiraan sidii Ethiopiaanka isaga celin lahaayeen. haddana xiisadu waxaa sii xoojiyay Ethiopia oo bilowday in ay markaasi madaxweynaha Soomaaliya ku bahdisho safarkii ku tagay magaalada Addis Ababa dhowr marna ka celisay marna garoonka diyaaradaha ka celisay marna ka celisay inuu tago shirka hoolkii hor istaagtay waxyaabo badan isku dayday walow dadkii la socday ciidamada ee markaasi amaanka ay wax badan isku dayeen ay madaxweynaha difaaceen. haddana waxaa la leeyahay arrintaasi dhibaato ay keentay Ethiopia sumcad xumo ay u soo jiiday. marka in Ethiopia dagaal wado way iska caddahay laakiin dagaalkii xagee ku gaari kartaa waay dhul Soomaaliyeed oo ay ku dagaalamaan ay qabsadaan wiligeed maysan dhicin. mar walba markay Soomaaliya lagu hala galaanba dhibaato ay la kulmi jireen. haddana tiyo kaleeto waay Soomaalida intii ka badan ka maxaa la dhahaa waxtar badan ka maxaa la dhahaa sanad military iyo quwad badan caalamka ayaana hub isaas maalin ku soo daldalaya sida Masar iyo Eritrea iyo Turkiga. Turkiga waxay sheegeen inay difaaci doonaan badda Soomaaliyeed dhulkeedaba. marka waxaad dareemaysaa in Mareykanka naftigiisa oo Soomaaliya keen Ethiopia ku xadgudubto dhul Soomaaliyeed ama dekad Soomaaliyeed inay qaadato. marka cadaadis weyn ayaa halkaas ka jiro. teeda kale waxaa jira isku dhacyo Djibouti iyo u dhaxeeya Ethiopia oo ah in markaasi madaxweynaha Soomaaliya markii uu Ismaaciil Umar Geel raacay in Abiy Ahmed ku caranayo u dhahay war ninka maxaa u soo waday
oo adiga horey gadaal ugu sii wadaa taasoo aad ka dareemi karto oo Ismaaciil Cumar Geelna ugu jawaabay war adaa marti lagu yahay dadka martida ku xadgudbay waxaas waa dulmi marka waxaad dareemi kartaa in kala fogaanshaha xataa Djibouti Ethiopia inuu soo baxayo oo aad dareemi karto in Djibouti laga yaabo inay tiraahdo anaga badeena Ethiopia waxba kala ma soo dagayso maadaama dhibaato ay markaa halkaas ka dhalan karto marka Abiy Ahmed jahwareer ayuu galay siyaasadiisana waa siyaasad guracan oo aan horumar gaarsiinayn dalka Ethiopia waad mahadsantahay gooniyow xaaladdu cirka ay isku sharatay foodana waa la isdari doonaa waana laga maarmaan inuu dagaal qarxayo haddayna Ethiopia ayna ka tanaasulin duulaankeeda ballaaran ay ku doonayso in ay ku qabsato xeebaha Soomaaliya taas way iska caddahay Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia saacad kasta wuxuu la taagan yahay annagu waa laga maarmaan inaan badda tagno maartay miskiin ayaa miska la fuulale oo ah Soomaalida waa cidda aan maanta wax ka qaadan karo haddana gorgortanku uu ka socdo sababtoo ay tahay dawladda badan waxaa jira Ethiopia daris laha Ethiopia kuma dhacdo inay xeebahooda sheegato laakiin cidda kaliya xeebada la sheeganayo waa dalkan burbursan kala socda ee balaayada la dhaxdhigay waxaan rajaynayaa Soomaalidu inuu midayn doono duulaanka Ethiopia Soomaaliduna ay si weyn cashir uga dhigi doonto Ethiopiaanka soo duulaya dhanka Ethiopia waqooyigeeda waxaa ka soconaya dagaalo aad culus oo u dhaxeeya Tigray iyo Axmaaro oo Eritrea garab kaleey gobolka Raaya TPLF weerar ay ku qaaday dhawaan welina dagaalku waxa uu ka socdaa alaamaata iyo deegaano ka fogfog oo ciidamada Tigraygu ay ku sii durkayaan sida ay tabinayso warbaahinta ku hadasha Ahmed Ayraandhaho luqadda Tigrayga ku hadasha fariisinkeedu yahay magaalada Makele ee caasimadda gobolka Tigray dhawaan Getachew Reda ayaa hadlay maalinimadii shalay waxa uu sheegay inaan la dhayalsan karin ciidanka Tigray maalinkii ay dawladda Ethiopia dagaalka la galeen Ethiopia quwad military leh oo soo kaxaysatay Eritrea Imaaraadka Turkiga Iran oo dhan walba laga garaacay iyo Afrikaan iyo Soomaali oo xataa qudhigadu dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu xanto inay dagaalka qayb ka ahayd iyo Liuboolsidii dalka Ethiopia hadda la kala diray hadda burburay oo markaas ciidan awood lahaa oo dhamaantood dagaalka la soo galiyay in ay cashar u dhigeen laba iloobaana ayaa waxay sheegeen inuu ciidanka Tigray uu gaarayo ugu yaraan 270,000 sidoo warbaahinta uu sheegay ninka la dhaho Getachew Reda waa madaxweynaha ku meel gaadhka ee Tigray oo sheegay inay maanta ka awood badan yihiin hadday weerar qaadaana inayna maalmo ku qaadanaynin inuu Abiy Ahmed Addis Ababa si harsado oo sheegeen haddaan la fulin heshiiskii dhawaan waa kan wararkeen hore ku sheegnay inuu gabrasiyo ninka khabiirka daaha gadaashiisa ka maamula Tigray in uu Addis Ababa tagay Abiy Ahmedna uu kula kulmay guriga madaxtooyada dhul meel aan ka fogeyn halkaana lagu wadaalsi Mareykankuna ay dhaxdhaxaad ka ahaayeen iyo reer Yurub loona sheegay Abiy Ahmed inuu barnaamij hirgeliyo laakiin waxa la leeyahay xogta qarsoon Abiy wuxuu yiri awood u mari inaan maanta Eritrea iyo Axmaara is wadato kula dagaalamo Raaya oo dhulka Tigray uu nisii celiyo aanu Baxardaar iyo Gondar iyo deegaanada ku hareeraysan ayaan dhaafilay idinku is xoreeyay waxa la leeyahay hub badan ma maqara laga dajiyay oo dawladda Ethiopia geysay oo Tigray ku taageer oo inay tiri idinku Eritreanka ka saara dhulka dawladda Eritrea 60,000 askari ku haysa gobolkaasi iyo maleeshiyadka Axmaaradaha dhowrka boqol kun gaaraya aanu dagaal awoodan kula dagaal beerini ma sheegi karo heshiiska intiisa kale waa fulinaya inaan Tigray saraakiil badan u magacaabo inaan rag muhiim ah oo raggii TPLF asalka inaan xilal siiyo oo loo yahay in waajibaadkooda ka soo baxayaan Tigrayna ay si fiican matalaad ugu yeelanayaan oo na keenayna caloosho shaqayste taa waan fulin karaa laakiin hal mid baa inaga codsanayaa wili Eritrean iyo Axmaaro halka jooga waqooyiga Ethiopia meesha cirifka ugu dambeeya ama xuduudka Suudaan iyo Eritrea iyo Ethiopia halka iska galaan jooga aanu awooda ma hayo caasimadii Axmaarada ayaan maalin kasta kumanaan ciidan ku sii wadaa welina dagaal halaaga ee deegaanka Axmaarada ka socda deegaano badan way naga qabsadeen Axmaaraduna Addis Ababa ayay u socotaa laakiin Tigray idinku hadda xoreyn kartaan hub iyo dhaqaale waa in siin karaan arrintan hadda dagaalka ay Tigraygu bilaabeen waxa la leeyahay Abiy ayaa ku yiri idinku is xoreeyo walaalayaalow dhulkaana qabsada Axmaarada dhabarka ka jabiya bahasha aan soo celino kadibna inagoo Tigray iyo Oromaha aan dalweynaha Ethiopia maamulano marka colaadda halkaas ka socotay gooniyow waxay ku saleedahay la leeyahay tagitaankii uu gabrasiyoon Addis Ababa tagay ayaa la soo siiyay keep going soco weerarka qaad aniga dhaqaaliyo hub weydii Makele maalin kasta kumanaan diyaaradaha oo hubsita ayaan keenaya sidoo kale Abiy wuxuu sheegay leeyahay aanu ma duqeynayo ciidamadaas ciidamada Eritreanka haddaan gantaalo ku garaacada ama diyaaradaha ee Bayraktar iyo ku kiciyo diyaaradaha kale ciidanka military Ethiopia isticmaalo Eritrea anay soo weerari oo Eritrea gantaalo u garaacay laakiin dagaalku hal noqdo dagaal Eritrea Tigray u dhaxeeya dawladda Ethiopia ay banaan ka tahay si ayna dawladnimadii ayna faraha uga bixin
Eritrea aan caasimada u garaacin wana anaga khalkhal amni loo gelin dagaalkan aan noo soo gelin marka aan dhahna wili anagu TPLF iyo Eritrea isdagaalay anagu bari baan ka nahay marka qorshayaal culus ayaa Ethiopia ka socda goorow dib baan kugu soo laabanaya hawlo culus ayaa jira oo siyaasadeed Ethiopia waxay doonaysaa inay duulaan qaado maalmaha soo socda muusana wuxuu yiri dagaalka bilaaba ciidankiina ha galaan awdan oo dhulkaas ha ka howl galaan Soomaaliya waxay qaadaan aragnay baasha la istijaabiyo sidoo wartay in ciidamada Ethiopia talaabaan horta si markaa u fiirisid Ethiopia ciidamada uma sahlan in gudaha Soomaaliya ay galaan caalamka oo dhan u jeedo wadan walba oo u sheegay in Ethiopia gardaran tahay dhul Soomaaliyeed aysan ku xad gudbi karin korna laga wada waardiyeysanayo maraakiibta shisheeye oo taagan xeebaha Soomaaliya oo markaas diidan waxa dhici kartay in duqeyn meel ay ka timid aan la aqoonin inay xeebaha Soomaaliya lagu duqeeyo in marka Ethiopia ka gudaha dhigaan gudaha galaan ama loo hayay seelac mid kamid ay tagaan in gantaalo lagu garaaco oo meel ay markaas jaan cirib dhigan la waayay ciidamada Ethiopia taas ayaan ka baqay waana sababta warshuu yahay sababta Mareykan ma ogolo Ingiriis ma ogolo nimankan la yiraahdo Turkiga iyo masaarida maraakiib soo diray Soomaaliya ma ogolo marka duqeyn joogto ah in loo geysto ciidamada Ethiopia halka ay ku dhamaadaan ayaan ka baqaya sababta ay sunu ogoleen waxay tahay caalamku intiisa badan wuxuu ka kaluumaystaa xeebaha Soomaaliya xeebaha Soomaaliya waxa ka socda kaluumaysi waxa ka socda kheyraadkii oo la iska daldasho waxa ka socda macdintii oo badaha laga baxo waxyaabo badan ka socdo waxa soo dhan oo socdana hadii marka Ethiopia meesha ay soo gasho maraakiibta shay waxan ma suuragalayso marka in Ethiopia ay markaas hadhow Israa'iil keento maraakiibteeda oo xuutiinta halka kala dagaasho qorshooyin kale ee Israa'iil wadataa jiro marka waa la isu gamban yahay wadan walba wadan kale ayuu isha ku hayaa oo leeyahay wadankaas iyo meesha qabsanin Soomaaliya macdinteeda wixeeda anaga u baahan inaan maamulno shidaal hadii la soo saarayo sanadkan dhamaadkiisa waxa lagu leeyahay hubiyo dhulkan waxa lagu soo saari doonaa shidaal oo wadamada caalamka ku tartamayo in shidaalkaas laga soo saaro marka waxa dareemi kartaa in caalamku ku tartamayo gudaha Soomaaliya Ethiopia ay u sahlaneyn in gudaha Soomaaliya u gasho mid kale Turkiga ayaa u taagan oo heegan u ah wuxuu sheegay askari kamid ah Ethiopian hadoo dhulka Soomaaliya soo galiyo dhibaato ay kala kulmi doona marka waxa lagu tijaabin doonaa hadda ka hor Azerbaijan iyo Armenia markay dagaalameen dagaaladii waxa lagu tijaabiyay Bayraktar TB2 wacdana ka dhigtay waa looga hadda Bayraktar TB3 ayaa soo baxdaba oo diyaaradaha hawada sida ugu jiraan aan la garanayn oo diyaaradaha dawladda aan wadin duqeynta ay u geystaan dhulka ku daray meesha ay duqeeyaan marka waxaan u maleynaa Abiy Ahmed iyo ciidamadiisa inay ceeb ka raaci doonto ama fashil ama burbur kale inuu soo gaari doono ciidamadan hadda oo ku faanay oo leeyahay waa sida 400,000 oo Ethiopian ciidamadu sida asaga u qoran inuu markaas la burburin doono oo marka waxba ay soo hari doonin dhibaatadaasna asaga ay ku soo laabo doonto oo amxaaradii iyo waxaan tartamay Tigraga inay qabsan doonaan Addis Ababa Abiy Ahmed in la dilo ama in asaga xabsi la dhigo ay ku dambeyn doonto xaaladda dalka Ethiopia arintaas ayaan aniga aaminsanahay Abiy Ahmed inuu weeraro Soomaaliya gudaheeda masalan mid kale Soomaaliya hadii tiraado ilaa gudaha soo gala kaalay weerar soo qaada ciidamo ku soo hogaamiso Soomaaliya ayada qaxal arki doona oo ka shalayn doonta arintaas una soo qaxi doonto dhulkan sool ilaa iyo maxaa la yiraahdo Puntland u soo qaxi doonto oo ka soo qaxi doonto amxaaradan iyo nimankan la yiraahdo ormadan faraha badan ee iska yaacayo hadhow badda hadda ku yaacaan dhibaato ay ka iman karto marka labadaas arin darteeda Ethiopia oo masahlan in Soomaaliya gudaha soo gasho waa wadamo shisheeye iyo nimankan Turkiga oo diidan iyo Soomaalida wali heegan ah oo laga yaabo ayadana mar hadii xabad bilaabato inay meel walba isaga yimaadaan dal iyo dibad dagaalkan ay ka qayb qaataan kuwa tabarka u socda Muqdisho meelaha kale ka socdana in lagu soo yaacin doono uma leeyahay doominta lagu soo qaaday maraakiib lagu soo daadin doono xeebaha Soomaaliya lagu hayay Isailac waxa kale jirto Djibouti oo ayadana hoos kala socoto dawladda Soomaaliya oo diidan qaabka Soomaaliya wax u wado waxyaabo badan oo markaas isku fiiriso iyo qorshaha socdo iyo diyaar garowga meel walba ka socdo umaleeyba in Ethiopianka intay gudaha Soomaaliya soo galaan waxa uu cadar ka dhigi doonaan badda Isailac iska qabsan doona shidow waad maadsantahay gooniyow Isailac iyo lagu haye waa bad iyo berri hadday badda tagaan waa suurtagal inay dalalka Turkiga iyo Masar ay duqeymo geystaan laakiin waxa la leeyahay berriga cid ka hor istaagaysa ama inay ka hawl galaan oo fadhiisimo weyn ka sameeyaan way fududahay shalay ninba wuxuu ii sheegay in ay jiraan ciidamo liyu booliska oo xadka ka tallaabay oo fadhiisimo ku leh deegaanada Soomaaliland gudaheeda halkaana dhibaato shacabka u geysta ninba wuxuu yiri anagoo Hargeysa ka soo baxnay oo wadana gaari rayid ah anagoo rakaab badana ayna joojiyeen liyu boolis wayna dejiyeen gaariga naga qaateen gaariga iskala tageen oo iska gaxaysteen rakaabkina meesha jidka ay ku daadiyeen marka wuxuu yiri meeshaana hawlo badan ayaa ka socdo in maamulka Soomaaliland waxba ka ogeyn khudbadeedkan ugu dambeeya muxuu yiri ninka la dhaco Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo warbaahinta la hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu sheegay in shalay dhibaatadii loo geystay madaxweynaha Soomaaliya ay ahayd mid qalad ah
teeda kale wuxuu sheegay in Abiy Ahmed uu aaminsan yahay in Soomaalida la isaga wadan karo dambiil ama la isaga wadan karo diyaarad lagu guran karo wixii rabo lagu sameyn karo maadaama madaxweynaha Soomaaliya la isku dayay in la jujuubo ama shirka laga reebo ama dhibaato badan loo geysto ayna suurageli weysay raggii la socday madaxweynahana si weyn markaas u diiday arrintaasi ilaa gacan ka hadal ay gaartay oo bastoolada la iskula baxo oo markaas Etoobiyaanku ay yaabeen dheen war nimankan Soomaalida waaba 10 nin wax aan ka badnayn sida maxay tahay sida isku waalayaan iyo maxaa la hubka rabaa inay ku dagaalamaan in la isku baabao ceeb ay ka dhacdo Addis Ababa waxa dhaanto in ninkan la iska fasaxo marka waxa dareemi kartaa wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn in Ethiopia ku xadgudubto madaxweyne dalkeedii marti ku ah isla markaana rabay inuu ka qayb galo shirarkaas ka socday madaxweynaha Soomaaliya labada arrin oo tagay ku guuleystay mid waxay ahayd in Muuse Faki meesha laga saaro waana uu ka saaray oo dadka ka saaray oo kamid ahaa mid labaadna waxay ahayd inuu ka horjeediyo midowga Afrika iyo safiirada caalamka hortooda in Ethiopia ku xadgudubtay dhulka Soomaaliyeed loona baahan yahay midowga Afrika iyo beesha caalamku inay markaas cadeyn buuxda ka keenaan Abiy Ahmed walow leeyahay Mareykanka iyo Ingiriiska waxay si toos u cadaadinayaan Abiy Ahmed inuu ka laabto heshiiska badda asaguna uu ka goos adeegayo marka waxyaabo badan ay jiro arrimahaasna Cabdiraxmaan Shukuur oo soo qorayna waa arrimo sax ah waana arrimo ka turjumayo dulmiga Ethiopia ku hayso dadka Soomaaliyeed marka waa arki doona wixii ka soo kordho shacabkan halkan ay kula guddoon haduu leeyahay waad mahadsantahay gooni oo daawadayaal idinkuna waad mahadsantiin inta barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doono sida ay nabadgelyo